بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الباذلين أنفسهم وأموالهم لنشر دين الإسلام إلى مدى الدهور والأيام. أما بعد، waxaan u mahad celinaynaa Allah jalla jalaaluhu naga dhigay dad muslimiin ah, nagu irsaaqay tawxiidka. Allahaas ayaan mahad u qiraynaa aan bilow iyo dhammaad lahayn. walaalayaal, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u nahay isaga kaligiis addooman. cibaadada iyo taacada Ilaahay baa nagu waajibiyey subxaanahu wa tacaala. sidaan ognahay, Ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati wadhaariyaat, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jin iyo insi uma abuurin ilaa inay aniga i caabudaan mooye. Ilaahay cibaadadaas ayuu noo abuuray. saa darteed marka qof kasta ee muslim ah ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala u qirsan addoonnimo, inuusan ka tallaabin taacada Ilaahay, mar walba uu Ilaahay ku xirnaado, amarkiisana qaato, taasaa la iska rabaa. wa min hunaa, Ilaahay waxyaabaha uu nagu waajibiyey waxaa ka mid ah bisha ramadaanka inaan soonno, oo soonkuna uu yahay rukni ka mid a arkaanta islaamka. allihiina waafajiyeyna mahad baan uga celinaynaa, inuu naga aqbalana waan rajaynaynaa. qodobka aan rabo maanta inaan bulshada muslimiinta u dardaarmo waxay tahay in waqtiga aan ka faa'iidaysano dhammaanteen. maxaa yeelay waqtiga Ilaahay baa kuugu deeqay inaad ku bixiso meel wanaagsanne adiga ayay faa'iido kuu tahay. saa darteed waxaa jiro su-aalo la isweydiin doono maalinta qiyaamaha, sida nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. ilaa 4 su-aal yaa qof kasta la weydiin doonaa, oo nabigu wuxuu tilmaamay laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4. yacni qofka maalinta qiyaamo gomadihiisu kama zuulayaan in ay taagan yihiin maxsharka ilaa laga weydiiyo markaas yacni su-aalo dhowr ah. maalinta qiyaamaha su-aalahaas ayaa la weydiinayaa buu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam. haddaba walaalkayga muslimka ah, walaashayda muslimadda ahay, su-aalahaas meesha kaaga habboon adigu feeri. waxaa ka mid a su-aalahaas, sida nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam, can cumrihi fiima afnaah. qofka cimriga Ilaahay gaarsiiyey meesha uu ku bixiyey maalinta qiyaamaha waa la isweydiinayaa. wa can cilmihi fiima facala. cilmigii Ilaahay uu baray, hadduu qof caalima ahaa ee wax garanaya, ee xaq iyo baatil kala garanayane, cilmigiisi meesha uu markaasi uu ku sameeyey iyo waxa uu ku sameeyey iyo waxa uu ku falay, iyo inuu ku dhaqmay cilmigii si waafaqsan sida Ilaahay ka rabay iyo in kale. su-aashaasna waa su-aal hortaala qof kasta ee muslim ah maalinta qiyaamaha. waxaa kaloo ka mid a wa can jismihi fiima ablaah. xoogga iyo jismigaaga Ilaahay ku siiyey, dhalinyaronimadaada iyo quwadaada Ilaahay ku siiyey, Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuugu deeqay caafimaadkii iyo jismigii iyo quwaddii iyo awooddaas maxaad ku bixisay? dhalinyaronimadaadi ma ka faa'iidaysatay Ilaahay daacadiisa iyo diintiisa ma uga faa'iidaysatay? su-aashaas ayadana waa su-aal qof kasta oo muslima hor taalo. su-aasha 4aad wuxuu nabigu ku sheegay in la weydiinayo qof kasta wa can maalihi, min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu. xoolihii iyo hantidii iyo maalkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey, halkii aad ka soo kasabtay markeedii hore ma xalaal bay ahayd mase dariiq kale oo riba iyo khiyaano ku dhisan?
dabadeetana markii maalkaas aad heshay xagee ku bixisay ma xalaal baad ku bixisay mise xaaraam su-aashaas ayadana waa su-aal hortaalla sida nabiga noo sheegay qof kasta ee muslim ah laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4 afartaas su-aal qof walba ee muslim ah haddii ilaahay cilmi baray haddii ilaahay awood siiyey haddii ilaahay xoolo siiyey haddii ilaahay cumri dheer siiyey intaba meesha ay kaga habboon tahay inay isxisaabiso sidaan ay ula socoto ayaan isu dardaarmaynaa allah jala jalaaluhu waxaan ka rajaynaynaa inuusan nagu ceebaynin maalinta qiyaamaha su-aalahaas ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa thabaat iyo maaragtay towfiiq ayaan weydiisanaynaa waxaan leenahay allahuma yaa musarifa alquluubi sarif quluubana calaa taacatik hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh